waxay ahayd 12 duhurnimo maalin axad ah kadib markii aan ku booqday xaafadda ay ku nooshay Nimco taasi oo ay ku sugnaayeen afar haween ah oo kamida asxaabta ay saaxiibka yihiin waxaanay fadhiyeen mid kamida maqsinada gurigaasi ugu horeyntii marka Nimco soo galay halka ay fadhiday dhanka midig waxa ka yaalay 8 xabo halka dhanka bidix ay ka taalay falaas shaaha waxaanan ugu horeyntii Nimco weydiiyay isla markaasina si caadi ah aan kala sheekaystay waxa ku kalifay ama siyaabaha ku kalifay cunitaanka waxaanay sheegtay in la iskaga baabiyo dhibaatooyinka qofka qabsada iyo waliba marxaladaha uu ku sugan yahay xilligaasi kaasi oo sheegtay inuu ilowsiinayo waxay u kalifay hooyo shaqaale haysata baanahay ku noolna magaalada Burco Togdheer ku nool baanahay walaalo nasiibka ayaa in badan marka walaalo mushkilad iyo dib baa walaalo igu kalifay dabeetana walaalo qaadka waan cunaa hooyo dhaqaale haysatana maaha asxaab baan leeyahay dad badan baan leeyahay qaar way heli karaan inay iyagu dhaqaalahooda amba family amba dad ku tiirsan yihiin laakiin anigu marna waan helaa marna waan waaya ma fahanti dadka qaadka cunaana kamid ah waxaad sheegtay inaad tahay hooyo carruur yar haysata maalin hesha maalin la weyda bal maxaa ku kalifay inaad cunto qaadka waxay igu kalifay inaan cuno dhibaatooyin badan oo aniga family iyo xagga nasiibka iga soo gaaray markaas qaadka siyaabahaasaan ku bartay qaadkuna dhib iyo dheef buu leeyahay anigu saacadaha qaar waxa baan idhaahdaa adduunka waa barabal ma jiro inuu wasiiriyo inuu kursiga saaraba iga dhiga saacadaha qaarna dhibaatooyinkiisa anigu waan dareemaa waa tahay hadda waxaad ii sheegtay inaad carruur leedahay miyaa lagu qabaa weli oo ninkaaga u jooga maya ciidima qabtay walaalo waan ciidima qabtay ma ninkaygii waan kala tagnay rag badan baan kala tagnay laakiin khaasatan hanta qaadkaas u baanigay qaba duruufta ugu weyn ee ragga ku kala tagtaan maxaa ugu badnaan maqaadka maxay yihiin bal noo sheeg markii uu guursaday anigoo laba dhala ayaan qaadka bartay dabeetana wuxuu igu dhimay qaadka waxay bartay islaan iga soo horjeeda iyo jitay dabka ayshid badeecadaan u babin jiray dabeetana kulba qoriyar bay dhiibi jirtay badeecada dabeetana ninkii adigu i dareemay waxaan ku waxba mar dhamiyo maalin walba waxaan bixi jiray weegi mar haddana waxaan bixi jiray weegi 2 jeer haddana weegi 3 jeer ala kulli xal maalinta dambe guri sida la wada fadhiyo ayuu dafiigu soo rag iyo dumarba fadhiyo dabeetana bartii ayuu dalaaqdaydi ku yeeriyay may fahanti ubadkiina way iga qaato dabeetana waan u ashkatooday ubadkii waa liisadana xurbiye la'aan ku haysato tataaxan ubadkaaga yar yar waxaaga yar iska hayso marka waba la igu fay walaalada qaadka dib iyo dhibaato badan buu wallahi saacada qaar uu idajiya saacada qaar wadnuhu xanuujiya anigoo cunayo habiyo wasiir gabigayguba iska dhigaya hadii wax daraba la sheego aba wax dhiba la sheego wadnaha ay xanuuna maskaxda ay xanuunta saacada qaar waba ma tagaaba ay faanti hurdala aan badan neerfaha iyo madaxa ku xanuuna naftaadii jirkaaga bedelma wallahi qaadka dhibtiisa iyo dheeftiisu way isleeyihiin inkastoo waxyaalaha imka ganacsiga ugu weyna laakiin waxa ugu fiican qofka qaadka ha cunay lacag soo saara marka waxaan leenahay hay'adaha dadka qaylo dib u eega may faanti oo wax tara oo caawiya oo sibnaaro u sameeyo de xusa oo sameeyo waxa la wixii muqayyiriin wixii hooyo iyo dad dhibaataysan iyo shakhsiyaan aniguba oo urur sameeya waxa tiri qaadka dib iyo dheef oo leeyahay maxaa kamid ah dheefta uu leeyahay dibta garanaya dheefta wuxuu leeyahay qofka imaka qayila ee isagoo kala iibiya waxyaalo badan baa ka soo galaya ubadkiisu ku waxaysanaya noloshiisu ku waxaysanaya laakiin qofku haduu qaado inuu meel uu iska fadhiyo biil ilaahi mooyana biil kala laanu maqlin waa dhibtiiso sidoo maalinba timaan yar gooyay dadka shaqaya ma fahanti marka siisa qaadka haduu xitaa qofku cunaya amal baa u fiican ana waa tahay bal qaadka waxa noo sheegtaa inta nooc lagu cuno ee ay isticmaashaan walaalo waxay isticmaashaa qaadka la dhaafay sabawanka ina aftiin la keeno dadarta la yiraahdo iyo qaadka la yiraahdo ina soofi iyo qaad la yiraahdo faraska iyo qaad la yiraahdo jabiska inta soo lagu isticmaalo laakiin qaadka magaciisa aad bay balaaran yaa koobi karaan adigu keebad cunta marka walaalo nooc iga soo horbaxa Soomaaliya maadaama baan lacag kiishadeeda ku haysanin aan iska shoomeerahay kii alla kiiga soo horbaxa walaalo cunaa ma fahanti marka qaarna ma bay helaba waa tahay maalin kasta miyaad cuntaa mise maalmaha qaar baa aan laba helinba maya walaalo maalin kasta ma baan daayir hadaan helayo laakiin maraan dayle wiig isugu bixiyo midana bil habeen iyo maalin toona seexan way jiraan ma fahanti laakiin marmar aan saaw dhaco qaadiray rida mooyana xitaa bahalkan si buu fidmayso xitaa dad lacag haysta si kugu soo galan la waaymayo waa geed iska
ما يفهمتي marka waa noocaade walaalo haddaan weydid kala haba ka haddaan weyna kala haba naga kululaada waa tahay qaadka bal qiimihiisa uu kala leeyahay noo sheeg markaa jabiska oo kale rubiciisa $7 baa la siiyaa dadarta oo kale 8 baa la siiyaa soofaha 8 baa la siiyaa ma fahanti hargeysu laakiin bahalku ku noociyo badan yahay hargeysu ku noociyo badan yahay laakiin waa noocyadaas oo kale qaadku maraan weydiiyay nimco inay leeyihiin goob ay haweenku isugu yimaadaan ayaa waxay sheegtay inay jiraan guryaha asxaabtu ay leedahay isla markaasina ay telefoon ku wada xiriiraan kuwaasi oo isugu yimaada gurigaasi waxaanay halkaasi fadhiistaan asxaabta oo gaadhaysa ilaa 10 qiyaas ahaan ama 8 waana tan nimco iyadoo arintaasi ka hadlaysa wadhacaysa way jirtaa madax xanuun badan baa yeeshaa nervous baan noqdaa adduunka oo dhan baa igu soo koobma ما يفهمتي لكن قاد كاتان أركو وان فرحة أو مشكلة ده أردن لكن واحد جرت مرة قف هنكي السباع هذا ده يكون صور رئيس قاد كان هنكي السباع يا صارت يا دمر كيا هواينك وما فينا وأنا كلا دردار ما يهبلها يري مك وحبران عيا صاك عيا يبلود ضد جبت بلود عيا بريان وحلاها هاي أو يارنكي نوع هوج كتشوج بالله هاي بحال أنا كو بيدي برنو ديده هنا واتك عيادني إذا كسو أكتوسم واحد شرتها إن تذكر الشيئين إنه قفل بوح جارة وصور قات كم كونان إن أدوك بالكواس ما كنت شرتها حكم إذا وحيابها كسور أنا هاي أنا حكى الشقاد ويدرا مركا كلي فرم الريح كراميل بنساي سلا بنو عيال قطي سايل هذا أنا عاد أصلا كهية بهالكامر كان على الساعة هذا الضباي تهين جوري مسح دار مايد وحول بمايد ساس قرحة الصبح صلاة الصبح يقول صباح صلاة الصبح ما يقول صباح marka bahalku firfircooni bi galiyaan dadka qaar sidoo liitinimo waxaan leenahay dadka dib ha loo eego wacyo galin oo hay'ad ha loo sameeyo hay'ad ay leeyihiin ha loo sameeyaan leenahay adiga hadii la qoranayo iska daa ma iska deyn kar lahaa waan iska deyn kar lahaa haddaan dhaqaale helo Soomaaliya ka dhadee waan iska deyn kar lahaa aniga dadka wali niyadoodu dhimatay ma fahanti laakiin waxa ugu kalifay horta bahalkan wuxuu leeyahay albaab laga galay albaab laga baxo hay'adee si looga baxa way yartaa ma fahanti wuxuu leeyahay junuudihiisa ku haf inta ku qabsadaan bay kula boodayeen laakiin waan ku rajo weynahay hadii aan helo dadka niyada u dhiso dadka moralkoodii soo celiyo sibinaaro oo shaqo abuur loo sameeyo way dhici kartaa 100% way dhici kartaa in iska daa laakiin 100% ma dhici karto